nin la yiraahdo Shaqiiq ibn Ibraahim wuxuu yiri ummadu waxay isku raaceen afar shay hadal ahaan ficil ahaanna way khilaafeen midda koobaad waxay leeyihiin annaga waxaan nahay Ilaahay adoomadiisa waxayna u amal falayaan sidii kuwa xor ah oo kale midda labaad waxay leeyihiin arsaaqdeena Ilaahay ayaa kafaala qaaday qalbiyadoodana kuma xasilno ilaa inay adduunyo eriyaan ma ahane midda saddexaad waxay leeyihiin adduunyo aakhira ayaa ka khayr badan maal bayna aruurinayaan adduunyada awgeed midda afaraad waxay leeyihiin geeridu waa lagama maarmaan waxayna u camirayaan adduunyada sidii kuwa aan dhimanayn oo kale saxaabigii jaliilka ahaa ee Abidar wuxuu yiri saddex ayaa yaab gelisay ilaa ay iga qosliyeen saddexna way murugo geliyeen ilaa ay iga oohiyeen saddexda iga qoslisay waa kow midka adduunyada jecel geeridan eriyanayso yacni diiladiisu way dheer tahay geeridana kama fakarayo labo mid ilowsanaan asna la ilowsaneen yacni geerida buu moogan yahay hortiisana qiyaama taagan saddex qof qosol badan aanan garanaynin Ilaahay miyuu u careysan yahay mise raali ayuu ka yahay saddexdii iga oohisayna waa kow kuwa isjeclaa geeridoodii yacni geeridii nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo asxaabtiisii labo geerida imaanshaheedii saddex istaagidda la istaagi doona Ilaahay hortiisa xagee baa rabbiga ii fari doonaa yacni ma jannada gal miyaa laygu oran doonaa mise naarta gal ayaa lay dhihi doonaa